السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا الجنال كنا هنا إيمان وعاد من جلس وعطان مركلة برنامج كيني فنك فلنقين ديسة ما أنت برنامج كنا هنكون سوق قادم دونا لباتن أكتر أو دلقاس تركيا وحكي جلا أو سندلشة ضربتها تركيا هين ساين دلشة ضربتها عيسن هين تركي كسر هذا برنامج كنا مركلته أدياد ما سدين بلي سبسكرايب نصار الجنال كنا أكتر كوجو هري برنامج كنا نكون سوق قادم دونا وحنقون دونا أكتر كلوجو مقعبه إلهان شين waxa uu ku dhashay dalkaasi Bulgaria 1987 waxayna u soo guureen waalidiintiisa dalka Turkiya markii uu jiray 2 sano. Aktarada lagu magacaabo Özgür Gürel aabaheed wuxuu u dhashay Sirkashiyan halka hooyadeedna ay tahay Turkiyeed ayadana waxa ay ku dhalatay Turkiya Istanbul sanadku markuu ahaa 1987. sidoo kale aktarada caanka ah ee lagu magacaabo Maryam Özürlü hooyadeed waa Jarmal aabaheedna waa Turki halka iyadana ay ku dhalatay dalkaasi Germany sanadku markuu ahaa 1987. aktarada maatrishada lagu magacaabo Alina Boz hooyadeed waxay u dhalatay dalkaasi Ruushka aabaheedna halka uu yahay Turkiyeed iyadana waxa ay ku dhalatay Moscow Ruusiya 1998. sidoo kale aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Ibrahim Gelokul hooyadiisa waa Greek aabihiisna waxa uu u dhashay Carab wuxuuna ku dhashay Turkiya Istanbul sanadku markuu ahaa 1982. sidoo kale aktarka caanka ee lagu magacaabo Kan Organ Oglu hooyadiisa waa Albanian halka aabihiisna uu yahay Turkiya isagana waxa uu ku dhashay dalkaasi Turkiya khaasatan magaaladiisa Izmir sanadku markuu ahaa 1981. sidoo kale aktarada lagu magacaabo Farax Zainab Abdullahi aabaheed waa Ciraaqi halka hooyadeedna ay tahay Turkiya iyadana waxa ay ku dhalatay Turkiya Istanbul sanadku markuu ahaa 1989. sidoo kale aktarka lagu magacaabo Barash Ardush hooyadiisa waa Albanian halka aabihiisna uu yahay Turkiya isagana waxa uu ku dhashay dalkaasi Switzerland sanadku markuu ahaa 1987. sidoo kale aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Murad Yildirim hooyadiisa waa Carab aabihiisna waa Kurdi wuxuuna ku dhashay Konya 1979. atrishada lagu magacaabo Sinem Özil aabaheed waa Azerbaijan halka hooyadeedna ay tahay Sirkashiyan waxayna ku dhalatay Izmir Turkiya sanadku markuu ahaa 1993. aktarada lagu magacaabo Ebru Shahin hooyadeed waa Armenian halka aabaheedna uu yahay Turki iyadana waxa ay ku dhalatay Turkiya Istanbul sanadku markuu ahaa 1994. aktarada caanka ah ee lagu magacaabo Elgin Sengu waxay ka soo jeedaan familkii aabaheed iyo hooyadeedba Sirkashiyan waxayna ku dhalatay dalkaasi Turkiya Izmir sanadku markuu ahaa 1985. aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Can Yaman familkiisa dhinaca aabihiis waxay ka soo jeedaan Albania halka dhinaca familka hooyadiisna ay ka soo jeedaan Macedonia wuxuuna ku dhashay Turkiya Istanbul sanadku markuu ahaa 1989. sidoo kale aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Kivash Tadlitog aabihiis wuxuu ka soo jeedaa dalkaasi Bosnia halka hooyadiisna ay ka soo jeedo Turkiya wuxuuna ku dhashay Adana Turkiya sanadku markuu ahaa 1983. aktarada caanka ah ee lagu magacaabo Neslihan Atagulu familkeeda waxay ka soo kala jeedaan Sirkashiyan iyo Belarusiya waxayna ku dhalatay dalkaasi Turkiya magaaladiisa Istanbul sanadku markuu ahaa 1992. sidoo kale atrishada lagu magacaabo Melissa Asli Bamuyuk waxay ka soo jeedaa dalkaasi Netherlands waxayna ku dhalatay Netherlands sanadku markuu ahaa 1991. atrishada caanka ah ee lagu magacaabo Fakhriya Efjin hooyadeed waa Sirkashiyan halka aabaheedna uu yahay Turki waxayna ku dhalatay Germany 1986. aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Jakatay Olusoy aabihiis waxa uu ka soo jeedaa dalkaasi Bulgaria halka hooyadiisna ay ka soo jeedo Bosnia wuxuuna ku dhashay dalkaasi Turkiya Istanbul sanadku markuu ahaa 1990. barnaamijkeena maanta halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina bili subscribe noo saar channelkeena share dhaha la qaybsa asxaabtaada waxaan rajeynayaa inaad ka mid noqotid familkeena aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin